waxaan maqli jiray ilaahay ninaan wax ogeyn cadaabi nin baa intay lacagtiisa cunto oo gaarigiisa caawa dhan saarnaato oo iskriinkiisa cunto oo sharaab iyo wax walba uu qaado oo hadhowna xitaa tigta ka bixiyo way sawiraday wada galeen statuska intay soo dhigtay sticker indhaha ka saaraysa oranaysa ayaan laguga arkin waxaan xanuunka hadda lacagtiisa bay cunta sticker on bay indhaha ka gelinaysa ka saaraysa kaasay weliba ku soo qoraysaa indhaadayga sawir xusuus mudan xusuus mudan waa habeenka dhacday ninka lacagtiisii waa habeenka ninka dhulka la jartay xaas xusuus mudan laa ilaaha illa waraga cadaalad bay rabaan naagtaas oo kale waa naagta ragga ka adaga la iska ilaaliyo ma garanaysaa ay hal la socdo qofku waa in yar oo ku daro waa maalintaadii keep going wax walba waad qaban kartaa saalahan adigoo gabadh yar arday macallin u noqon karay haddaad carmar iska guursato adigu arday noqoto dee walaal maaha kartaa walaal dhiirigeliyo waxaan ahay adigu gabadh hayni oo waxba hayni oo geed hoosti gabadh ku duubaya aad ummadii taa kaca fadhiga ka kaca isdi wararta dadku waxaanad ahayn maxaad ugu sheegtay inaad miyaan qorin buugga inaad saddex guushi lagu gaaro xagaad ku qortay saddexda guushi ma gaadhi guushi sawirkan geed hoosti gabadh ku duubaya ka taagan banaanka taagan war dadka nagu maqashay dad baan waxaan ka dhaadhicinaa sida guushi lagu gaariyo adoo ha ku oran guul baan la gaaray iyadaan mid la gaarin baa dadka lagu yahay guul baan u gaadhin sida jacaylkaaga la saga ilaaliyo inuu ku khiyaameeyo dhiirigeliyaasha Soomaalidu waxa ya bisha Ramadaan haddaad weyday ereyadii macmacaanay lagula hadli jiray sida I love you baby noloshaydi waad qurux badan tahay weligaa kuma ilaawi doono my only one my heart wixii lagu oran jiray oo dhan haddaad weyday bisha Ramadaan qofka la sheekaysan jirtay ogow wuxuu ahaa shaydaan isaga iyo shaydaankiiba way xidhan yihiin qof kasta oo jacaylkiisii waayay waxaan u sheegayaa inuu shaydaan la hadli jiray hablaha adduunka ugu wacani waa gabadha soo jeeda habeenkii ee saamaleysha ee ragga u sheekaysa waa gabdhaha dhala darawaliinta gaadharka xamaaliinta tiglayaasha baslayaasha tuugta gaadhka askariga nimanka aan seexan ee habeenkii dabanka aan hurdadu karin ee saamaleylka ee awga gaadhiyaasha waaweyn mariya ee geed adaygo dhan hablaha dhalaa waa hablaha saamaleyle ee soo jeeda marka hablaha hal ogaado baan leeyahay geed waliba dheecaankiisu dhalaa nin waliba qofku jiifiyu soo toosiyaa shay walba wixii lagu shuban baa laga shubaa aad gabadha daacadda ee guurdoonka profilkeeda waxaa saaran guri nisbalooda sariir furaash kitaab jiscama isuuri salaas naxwe waxaasoo dhan baa saaran maraq digaaga jubbo caana shiid waxa la yiraahdo caruur mataano madaxyo waaweyn masaasadii caruurta laakiin haddii gabadha profilkeeda ay saaran yihiin buskul dhiiq ice cream xalwad 4 kiilo dalalka Canada Australia Turkiga waxaasoo dhan haday saaran yihiin profilkeeda gabadhaasi guur diyaar ma haddaba gabadhay profilkaaga iminka maxaa saaran xilligan aan joogno maxaa saaran oday 7 jira baa bari masaajid tagay dadna wuxuu maqlay sheekhi wuxuu ka maqlay khudbad intuu dhageystay xilli kasta oo saantaada la ciyaarto hal gaal baa dishay dad laba jeer la ciyaarto laba gaal baa dishay dadna saasaad jannada ku galaysaa haddaad habeen dheel gaal ka disho odaygu wuxuu siyaa jannada gashi intuu haruur iyo qabandi soo baxaysta bislaantiisu iyo markaas uu wax maqlaysaa saasaa jirta habeenkii inta haddaan galo intaasoo gaal baan dilay jannada hore ka galay awalba waan ogaabay tiri anigu in hawshani jannada lagu galayay wad odaygi ba haafka hore ciyaarta si wacan u galay haaf labaadkii buu haddana galay mar saddexaadkii iska seexdo odaygi intuu naqas ku dhagay isagoo iska seexdo isduduubay ay ku tiri waryaa taana u keento war toosniyo gaalada inta hadhaaynu leynayso iyo gaala hadhay mar saddexaad mar afraadkii bay tiri carro dibadda u qayli waa reeriyo dhan butoosiyey markaasay ku tiri war maxaad la qaynaysa sida gaaladaan cid nala laysa u doonanaa waxaan u sheegayaa hablaha Soomaaliya xidhiidhka lagaga baxay beriyii u dambeeyay gabadhay adaa u wacni xidhiidhka lagaga baxo wiilkii iskuulka kula dhigan jiray baa screenshot ka qaasa walaalkay macaane kala saara walaaltinimada iyo xidhiidhka raggan jacaylka ka baxay way ka masayrayaan ninka yaraa screenshot ka soo qaadaso stiigaraa la isaga soo kaa diraya screenshot walaalkay kana waa walaalkay qalab kay iskuulka wada dhigan jireen baa stiigar u soo diraya kay malcaamadda wada dhigan jireen baa shumis u soo diraya kay bareefadka wada dhigan jireen maasna waxay qoraal u soo diray screenshot baa laga soo qaadaya
ninkii markuu arko waxaan screenshot nin walba leeyahay waa walaalkii wuu xanaaqaya adaa u socdo qof walba screenshot baad ka qaadaysaa markaas aan waa walaalkii hadalkiisa kama daalo kana waan ka hela waxa iskaga ka khaldan gabadhay adiga oo maanta 25 jir oo dugsi sare dhameeyay xiriirka ninka la lahayd iyo ka aad walaaltinimadu in la dhaxayso waxaan u sheegayaa dumarka la qabo hablaha saaxiibadood ee ay guriga keenayaan inay iska ilaaliyaan haddii ninkaagu uu gabadha ka helo oo jeclaado de walaalay gabadha islaamada ku soo booqatay ee dahasaari war maxaad ka leedahay war waxaan lahaa de gurigaaga ha u soo deeninan